Marwo Samsam Maxamed Cige oo ah musharax u taagan jagada golaha wakiilada Somaliland ee gobolka Saaxil ayaa hambalyo u dirtay guud ahaan shacabweynaha reer Somaliland munaasabada Ciidul Fidri aawadeed gaar ahaan taageerayaasheeda taageersan ee ku nool gobolka Saaxil iyo guud ahaan deegaanada kala duwan ee Somaliland. Marwo Samsam Maxamed Cige ayaana taageerayaasheeda ka codsatay inay u diyaar garoobaan codbixinta doorashooyinka qaranka Somaliland isla markaana cod iyo cududba la garab istaagaan sidii ay Marwo Samsam u noqon lahayd mid ka mid ah musharaxiinta ku soo baxa doorashada golaha wakiilada Somaliland isla markaana ay Marwo Samsam u noqon lahayd xildhibaan codkeeda ku matasha shacabkii iyo deegaanadii laga soo doortay. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Maanta waa maalin ciida oo farxad leh waxay noo soo dhamaaday soddonkii bisha Ramadaan ee fadliga lahaa biidmillaahi kariim. Ilaahay si nabada oo barwaaqo ah oo qabow ayuu inoogu dhameeyay. Ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa. Inta marka laga yimaado waxaan doonayaa dhammaan ummadda islaamka muuminiinta islaamka oo dhan daafaha dunida jooga inaan la qaybsado farxadda ciida oo aan leeyahay kulli caam wa antum bilkhayr. inta ka bacdi waxaan doonayaa dheer dalkayga Somaliland ee aan jeclahay ee aan ku dhaasho ee aan ku dhashay ayaan leeyahay ummadda ku nool dhammaantiin ummadda Somaliland ciid mubaarak oo u horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo labada gole qaran iyo golaha wasiirada dhammaan ciidamada qalabka sida qaar kasto ay yihiinba aad iyo aad baan u salaamayaa leeyahay ciid mubaarak ciid wanaagsan ilaahay ciideeda haynagu gaarsiiyo nabad qab. waxaan kaloo halkan kaga faa'iideysanayaa taageerayaashayda aan jeclahay ee aan halka ku soo gaaray dhiirigelintooda iyo garab istaagooda ayaan leeyahay ciid wanaagsan ilaahay acmaashii Ramadaantana haynaga aqbalo ciida fadligeeda iyo farxadeedana iyo nabadeedana Allah hayna siiyo ciideeda biidmillaahi kariim inagoo nabad qabna Allah hayna gaarsiiyo. waxaan kaloo aan rabaa waxaynu galeynaa ololahaynu galeynaa waa doorashadii isku sidkanayd waxa weeyaan waa maalin dastuuriya oo in la doorto adna lagu doorto adna ad wax doorato ay waajib tahay. taageerayaashayda waxaan sheegayaa waxaan leeyahay in doorashadu caqabado fara badan bay ahayd wixii badnaa waynu soo gudubnay alxamdulilaahi shukri ilaahay baan ugu mahadnaqayaa. inta inoo hadhay waxaan leeyahay aynu u dhabar adeegno aynu inagoo nabadgelyada ilaalinayna aynu ku ridno codkana ummadda Somaliland na khaasatan gobolka Saaxil waxaan ka codsanayaa maadaama aan ahay musharaxad ka soo jeeda ina i doorataan aniga oo codkaygu yahay magacaygu yahay Samsam Maxamed Cige calaamadayduna ay tahay kaare ayaan si naxariis iyo qadarin iyo ehelnimo iyo wadaninimo idinka codsanaya inaa codkiina iigu deeqdaan si aan u guto waajibaadka dastuuriga ah kana mid noqdo baarlamaanka dalka loo dooranayo haddii alla yidhaaho. dhammaantiin waan idin jeclahay rag iyo dumar dhalinyaro iyo waayeel. waxaan kaloo u mahadnaqayaa intii ila soo shaqaysay intaasoo dhan ee i barbar taagnayd aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. xisbigaygana waan u mahadnaqayaa. waxaan idinkaga tegayaa barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maxamed Deeq Ismaaciil Xaashi telefishinka bulsho magaalada Hargeysa.